السلام عليكم. البرنامج كيني وين سكب بلابنينا وقت بنوين ويري هاي وين نصوح لنا مركا dad badan oo magaalooyin fog ka yimi baa jooga oo isa soo xilqaamay marka waxaan idin oran lahaa wixii aad su'aalo u haystaan Saleebaan waa weydiin kartaan ee ku saabsan xisbiga cusub ee wadani marka su-aalaheena aynu iska bilaabano dee qofkii su-aal hayuu gacanta taag dabeetana aynu dhaqsaga soo xilne su-aalihii way furan Axmed Saleebaan السلام عليكم مرحبا سلام waxaan weydiinayaa uun sababtu waxyaabo badan ayay iskaga wada eegyihiin dowladda xisbiga maanta waddanka ka jira waxa aad astaan awka ah ee matala xisbigiinu uu kaga duwan yahay 15 qodob hore xisbi uu kaga duwan yahay sida looga tartaaban karto dadkana soo jeedan karaa oo la odhan karo cusub bay kusoo koreen saaxadii waxaasay ayay ku yihiin waxaweeye lagu gaara dadkaan oo tartaaban karto أحمد وين ومعتي شيء سيدان أحمد الشيء بقى قلت وطبعا في جد وين نمبر 1 سيدو كل مدي أي كده عشان يتمنى كورة عصوب أي بجربة وطبعا كل مدي أو كردبة كنا جت مبادئ بيسا إنه الديمقراطية ده يحول لماذا وغلاليو وحنا كل مدي تجاه الديمقراطية أو تجاه لما يدخل ururka asaasay ay u dagaalameen dimuqraadiyadda iyo in laga ilaaliyo Somaliland monopoly-ga in siyaasadda la monopolize gareeyo oo maskaxda laga qabsado oo dictatorship laga hortago ayuu ku yimid number 1 qadii way soo deegin ururadu kulleyba kalmadaha meelaha ku qoran waxaan filayaa urur walba way ka muuqdaan marmaanaya laakiin annagu waxaan kaloo kaga duwanaa waxa weeye ururku wuxuu ku aasaasmay Somaliland from Laascaanood to Labiacado dadkeedu way u dhan yihiin boqolkiiba maha urur lagu tilmaami karayo urur qabiil uu hogaaminayo maha urur lagu tilmaamayo urur uu hogaaminayo nin shakhsi uu hogaaminayo maaha mid lagu tilmaami karayo inuu qof samaystay ururada kale waana ka dhadhamin kartaa in qaarkood inuu doonayna dhaleeceeyo laakiin aad ka dhamin karto inay qabiil ahaan ku biiskaraysan yihiin ama shakhsi takalase waxaan halkan doonaya inaan ka sheego dhammaan ururadaas kulli waxay wada doonayaan horumarka dalkeena umalaynaa urur kaliya oo kasoo jeeda horumarka iyo wanaagga dalkeena inuu jiro waxaanay wada waafaqsan kulligoodba sharciga waddankeena u yaala iyo diinta islaamka وهذا نكى مثلاً سنة الله ورايا أنا واحد من خطبان وين هاي واحد من هاي تسكوحنا هرنا سوحنا من هاي وبدن هاي وبدن تك أساس يوبدين تك خلاء كسوب يرتونا كل واحد هاي يبغى قارئ ذي بينا وروحنا نقومنا عصباء وخلا ورفض كان هو ونكخبط بدن هاي هراء أوروبا كانوا حسبي ونواحين marka khibrad badan xayawaanana kulley waxaan rajeynayaa inuu ka waxtar badnaano laakiin kii guulaystayba kulley waxaan rajeynayaa inuu waddanka iyo dadka waxtar uu kusoo kordhiyo doorasho xor iyo xalaala la galo insha allah waxaan rajeynaa kii haddii aan waxaan rajeynaa inaan badino haddii nalaga badayna inaan kulley kuwa kale aan taageeri doono mustafaac tamaama dhexdaasa soo iyo tuuray hada laakiin markii lagu jiray والله لو جري مصطفى عطنا هبين يرى خفصن بقى يمدي سما تايم يمدي ومركي يقعد نحكي مرة يصير موتي ولا سيد هو نكت بينهم حيين كل يقعدوا هم مشوا كبحر موتي
marka baashu way isrogtaayo anagoo isle ma garanaysaa kulmiyaad ma garanaysaa ku dhufanaysaa goob kala dhacaysaa oo daafaysaa ayay baashaas inay isrogaysaayo waa siyaasad weeyaan dadkana yoolka iyo qaylada iyo waxaa waxaan ka arkay dabaaldegaas xaqiiqada marka wata ma shaqeeyo qabiilkuna ma shaqeeyo xaqiiqada marka wata waxaa shaqeynayo uun liidarka markaasi ku horkacaya mabda aad wato dadka ka tirsan ma garanaysaa in xisbiga sharaxaya ama kasoo jeedo ayaa noqonaya actually characterska lagu dooranayo laakiin kulligeenba waxa weeye anigoo doonaya mid naba dhalibo 15 koob iyo 3 xisbi horaba kulligood waxay raadinayaan inay waddankeena horumarayaan oo ay nabadgelyadiisa iyo dimuqraadiyadiisa iyo ixtiraamkiisa raadiyaan يا كذا سؤال هذا سؤال سليمان ويديني waxa weeyaan gudoomiyihiinu wuxuu hayaa xil kale oo ah in waxa gudoomiyihiinu wuxuu hayaa cabdiraxmaan xil kale oo weyn oo uu dalka u hayo oo ah ra-iiska baarlamanka oo ah sharci dejintii dalka miyaanay u egeyn hadduu xilkaa hayo inay conflict of interest imanayso oo uu isagu sharciga wixii uu la doonayo xusbigiisa isagoo sharcigii gacanta ku haya inuu marsan karo miyaanu miyaanay meesha ku jirin in labada xil midu iskugu wareego taasi waa ta koobaad sharciguse ma uu ogol yahay ninka baarlamanka ku jira inuu shaqo kala qabto anigoo og in ninka iminka wasiirka daakhiligihi markii la xilka loo magacaabayay inuu noqdo horta inuu xilka uu hayo soo daayo ninka gaboose la yidhaahna uu yidhi xusbi aan furanayaa dabeeto xilkii ma hayn karo waayo xusbaa furanaya marka isaga cabdiraxmaan waxaan leeyahay miyaanay isagu ka mid ahayn dadka sharciga caynkaasi qabanayo gudoomiyaha nasiye ismaamshu waxa weeye xumaasi North America هذا سؤال waxa weeyaan in badan media ku jirtay oo la isweydiinayay laakiin inaan laawi daayirayaal madaxweynaha waddanku ah waxaan waxa gudoomiyihii xisbiga qodobka madaxweyne ku-xigeenka oo Axmed Yaasiin ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore isaguna de madaxweyne ku-xigeenka waddanku ah meel ka sareysa ma jirto hay'adda ugu sareysa oo madaxweynaheeni iyo madaxweyne ku-xigeenkeeni labaduba udub bay ahaayeen cigaal Allah yarxame isagoo oo madaxweynaha uu udub sameeyay sharci waddanka ku yaala in sharciga ku yaalo uu diidayo qofka baarlaman haysta ama madaxweyne ka inuu xisbi hogaamiyo ama uu hogaamiyo ma jirto nasiib wanaag waxaan gabdho kaliya loo eegin 22 xildhibaan oo kale oo fadhiya baarlamankeeni ayaa iyaguna ka mid ah wadani oo ka soo baxay ururada ay ku jireen oo ay xisbiyada ay ku jireen ka soo baxay marka taa waxaan ka jawaabay waxa kula hadii madaxweynaheena waxa sharcigu hadii sheeg maxkamadaha hadii loo eegno waxa weeyaan hebel baa George noocaas baa caynkaasi sharciga baneeyay maalin baa caynka loo qaaday dawladda Soomaaliya waxa weeye madaxweynaheena kula haduu gudoomiyihii xisbiga qudub ahaa oo aanu oranin waxaan ahaanayaa madaxweyne ma ahaanaya hadii gudoomiye xisbiga laga daayo dawladda waa banaanti markaa wax u diidaya oo discriminate gareynaya number 2 Axmed Maxamed Siraayo gudoomiyaha markii uu meesha ku guuleystay musharaxiina wuxuu noqday kulmina uu noqday waanu isu sharaxay waanu ku guuleystay ciidana may qasbin oo may oran labada jiga isku ma haykatin sharci qasbina ma jirin sharcina ma diiday isaga ayaa doortay oo ogolaaday inuu ku wareejiyo gudoomiyihiisii oo xilkaasi iska wareejiyo su'aasha kale maxaa soo saar
بشير راليها waxaan ka horeysiinayaa gabdhahan ka horeysiinayaa waayo way naga fadalayn mahadiyeen way tadawina taasaahay السلام عليكم دمانتي waa mahadsantihiin magacayga waxaa la Saciid Cabdiraxmaan Cadoole horta maanta waxaan u sheegayaa anigu inaan kolka hore waxaan ku jiray xisbiga udud laakiin maanta laga bilaabo horta waxaan ku jiray xisbiga wadani sababaha anigu kale waxa weeye laba sababood kow waxaan aad iyo aad ugu farxay maalin weytoon arkay iyaga oo qolada gabooye ee laga tira badan yahay ay runtii uu inan ku jiray waana xisbigu ugu horeeyay u maleynaya mid walba marka lagu daro kii ugu horeeyay dadka uu soo galaaday taas waxay cadeynaysaa in dadkii soo galiyeen muhiimadda ugu weyn ee qof anigu hadda jeer waxaan jecelahay in dadka minority-ga la soo dhaweeyo oo ay ka muuqdaan Somaliland nabadeeda marka number 1 ka taan u galabta waa kow iyo talabaad oo ah iyagoo mudnaanta siiyo dumarka lafteeda marka waxaan aad ugu hambalyeynaa labada arrimood gudahood waxaan ugu ballan qaadanaa ma noqonayna member oo kaliya inaan weliba active ka noqono waxa la waxay u baahdaan aan hiili walba isla kala taagno okay marka su'aasha aan weydiinayo Saleeman maadaama halka ka arkay inaan ka dadka laga tirada intee oo gushihiin dadka dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay inay ka noqdaan marka haddii aad ku guulaysataan ay qayb ka noqdaan hadday wasiiro noqoto hadday yani dee madaxda waddanka ay noqoto su-aashaasana baynu ku weydiiyo iyo dumarka labadaba سعيد أنتم محطوط نسيب هناك وحوي وانجي إمك الله وطن وحكوا بيه from Las عنوت لو يعدوا أنا كودر from لوهايو تبلا خطر أنا كودر أنا كودر إن سومالي أنا روين مثلا إن ضد ككلي وحلين هذا ضد اللي تبدأ بدين لكن كلي ما كمان ويل ضد اللي بتريه ضد كويسمي iyadoo loo eegay kartida iyo awoodda ay qof ku leeyahay shakhsiyan oo aan qabiil loo eegin haddana waxaa kolley mudnaanta badan la siinayaa dadka lagu discriminate garayo inay beel ka soo jeedaan ama uu qof dumar yahay mudnaan gooniya baa la siinayaa marka for example haddii ay dhacdo golaha deegaanka habeen dhaweyd oo qolada gabooye ay la hadlaysay intaan yarkaa la magacaabin ma yogin iyagu laakiin waan u sheeg waxaan ku yidhi annaga waddan ahaan way noogu jirtaa baan ku noqoshaa in beelaha dadka laga tirada badiyay ay soo sharaxdaan ciddii ay u gartaan inuu mateli karayo oo uu ka qayb galo golaha deegaanka hadday noqoto iyo baarlamanka hadday noqoto iyadoo lagu xisaabtamayo in doorashooyinka noocaas waxa u dhacaan cod bay ku dhacaan aqlabiyad bay ku yimaadaan kootooyin kulley baarlamanka way iska jiraan laakiin wax laga qaban karaya waxa weeye xagga sare dawladda sare wey wasiirada iyo dawladda marka la dhisayo dawladda aad bay u ballaaran tahay ana waxaan qabaa dumarkana in aan limit loo samayno kartidooda la eego laakiin haddii la eego inay iyo tahay inay awooddooda ay sii weliyo dumar badan ay kusoo baxaan in la dhiirigeliyo oo lagu soo daro dawladdii lana gacan qabto wixii ka dhimana loogu daro sidoo kale dadka laga tirada badan yahay saas oo kale iyagana loo gacan qabto haddii ay kusoo bixi waayaan number iyo cod iyo ay kusoo bixi waayaan laftooda in la gacan qabto marka limit ba looma sameynay lakin haddii laga qof maanta awood leh oo aqoon leh oo kasoo bixi karaya hawshii loo dhiibi karayo waxaan qabaa inaan dadka kale aan waxba laga duwin oo lagu caawiyo inuu hawshaasi qabto lagana caawiyo weliba mar labaad ku celiya haddii lagu riixayo reer ama meel kasoo jeeda ama dumarnimo oo marka ay doonayna insha allah inaan tallaabo oo raki qaadno qofkaasi qaadno بشير بسم الله الرحمن الرحيم anigu su-aasheedu waxay tahay horta waxaa jira magacan wadani aad uu magac wanaagsan yahay tan waan ku hambalyeynayaa su-aashaan qabaana waxay tahay waxaa jira madaxweyneyaal fara badan oo marka ay
talada ku guulaystaan dareyska waddankooda astaantooda xidha iyo baarlamaanka suudaan oo kale marka haddaad talada ku guulaysataan laga yaaba in madaxweynuhu xidho hidihii dhaqankiiyo markuu baarlamaanada ka tegayo waddanadaas uu isagoo dharkiisa xidhan dareyskii somaliland uu ka qayb galo mise taygana waayo waxaan arkaa imika waddani iyo waxay isqaban lahaa taygeed wada siteen bashir kulley waa kulmiyo oo kulmiyan hay buu yidhi laakiin waxaa la yidhi awrka hore awrka dambu socodkiisa leeya baa la yidhi marka kulmiyana wuu nagu horreeyey kulley dawladdu waa nagu horreeyey waxba se kamay bedelin oo dee labadaa goob may qaadan way ka tegeen iyaga laftigooda ya laakiin hadday noqoto dee meel dhaqanka somaliland iyo dhaqanka geeska afrikaba lagaga hadlayo oo de waxa ubaada in qofka markaasi ka qayb gelaya in shirarkaasi astaanta iyo dalkeena iyo dhaqankeena inuu muujiyo laakiin meel siyaasad lagu radamayo sidii london oo kale iyo magaranaysa lagu arko sidii qadaafiya oo kale kolba inaad sidii haweentu u labisan tahay u malayn maayo inay magaranaysa inay soo jiidanayso dadkana inaan iska dhex saarno maaha marka dadka inaan iska dhex saarno maaha haddii dhaqan laga hadlayna dhaqankeena waynu muujin doonaa haddii diin laga hadlayna culimadanu kuxaysan doonaa haddii kaloo dee laga hadlayo dadkan modernka ah ee magaranaysa jooga iyo dadka taygeena iska xidhnaan cid kaloo su-aal haysa dee kaale halkan gacanta badankaa ka taagtay magacaagana sheeg السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan qabaa su-aal ah aan weydiinayo wakiilka idinla joogo ururka wadani haddii ururka wadani uu ku guulaysto xisbinimo oo uu guuro inuu haddana hogaanka dalka ku guulaysto ma soo dhisi doontaan xukuumad loo dhan yahay somaliland oo dhan ay ka muuqato weliba xubnaha sare hogaanka dalka ciidamada nidaamka kala duwan ee dalka baarlamaanka guurtida waayo hadda waxaa inoo muuqataa inkastoo aan laga maqnayn haddana waxaad moodaa in roob gooni meel ugu horo arrintaasina waxay keentay dhibaatooyin badan maamulo samaysan carab badan oo aan weli jawaab laga bixin xukuumadda hadda jirta in badan baa lagu celiyay haddii markaa idinku ay idiin suurta gasho xisbinimo isla markaana ay idiin raacdo hogaanka dalkina may qorshaha ma idinku jirtaa inaa xukuumad tayo oo bulshada reer somaliland dhammaantood haystaarka beerihii dhisto oo dir iyo daarood ba diyaar ugu hadda jirin kulli horta dir iyo daarood lagama yaaba inaan ku kala gartay laakiin waxaan ku sheegaa somaliland in imika wadani waqtigan uu taagan yahay inay somaliland u dhan tahay inaan halkaa kasii wanaajino oona hore uga sii qaadno mooyaane kulli dib uga dhici mayno laakiin waxaan weliba taageersannahay wax cid alaala ciddii wax tabanaysa ama dawladdana ka tabay ama kuwii horaa ka tabay dadka wax tabanaya aad bay u badan yihiin maaha oo keliya in magaranaysaa qoladii khaatuma seegoo keliya maaha dadka wax tabay dad doona wax tabanaya baa jira laakiin kulleyba nabadgelyada waa muhiimad waana number one in la ilaaliyo qof allaala qofkii nabadgelyo wax ku doonayana wadani waa diyaar inuu magaranaysaa gacan qabto ama wixii ay tabanaya ama kala hadlo marka waan ogan lahay maahe waa qasab bay tahay qofka muwaadinka ah oo kastoo meesha doona ha deganaaday inuu dawladda ka muuqdo uu kamid ahaado halkaa laysoon garanayaa waxaad kulli beelaha dhexaa waad suranaysaa guurtidii iyo baarlamankii iyo madaxweynihii kulligooda wada haystaa iyo howlahaas way iska imanaysaa dimuqraadiyadda waxa weye tallaabooyin bay marxaladay leedahay marxaladahaasna kolley waxa weeyaan maalin kasta ma soo sii bedelaysaa insha allah waxaan rajeynaynaa arrinta bariga naga furana in ilaahay naga soo gebagabeeyo nimankana ilaahay maskaxdooda iyo qulubtooda meydho oo ay waddankooda dhismihiisa iyo wanaagiisa ka qayb qaataan iyo ictiraaf raadintiisa
kuwa kale ee mustaqbalkan kulli dad kale wax qaban doonaa kuwii kale iman doonaa wax qaban doonaa in iyaga laga shaafiyo oo la hagaajiyo waxay tabanayaan wax laga qabto. waa su-aashii ugu dambeysay jaamaca dee gacan dheer baa taagtay bal ka soo dhac meel fogna waad ka timi. السلام عليكم جامعة علينا سؤال سلام وجهنا يعني وحوي وحي مقطع إن قبلدي ليلابي أو تي حمر نكايستي ولي نكايستها الجيسة أو أنا وساردي شو إن قبلدي وأن لجمة إن قبلدي محاكم بدرسان تاه بس هو حوي إنه وربا ورغدا كسوسة الجيسة إنه كشرين waa su-aal wanaagsan laakiin jaamaca reer gesha lahaydi si warqada lagaa soo saxo adiga lagu imaya xad ku diiday kumaan jawaabina waa taas waa kabta horta demaan maqasay waxa dhisman mud inaad reeraysa tahay laakiin dee waxaad moodaa in iska caadis tahay oo caasimada lagu soo ururo mana inaan gaarin heer aynu sida dee dalalkan aynu imanka ku noolahay layidhaahdo the revenue agency-ga laga furo buraha laga furo ama ergaabo ama beligobadle ama dabiicadaha laga furo hala qaybiyo hala distribute gareeyo si dadka looga shaqaalayo dadkeena waxaad moodaa inaan loo taagelayno imka burco dhan way soo guurtay markii qolada kulmay meesha ma garanaysaa luqadii xitaa waxay isbedeshay hargeysa isbedeshay mudaba waxaad moodaa meesha inay dee iska tahay qayb kamida bari tahay oo hargeysa laftigeeda imaka lama kala lahaa marka insha allah waxa weeyaan kulligeenba waxaa aqoon in wada shaqeyno sidii taas u suurtageli lahayd nin walbana halka uu degan yahay loogu geyn lahaa meel waxaa muhiimada weyn waa shaqa waxa weeyaan sidii shaqada ugu sameyn lahaa dadkan in wasaaradaha xerofsidooda la bedelo oo la qaybiyo oo mid walba meel looga dhigo oo waxaan ka shaqeyn karayno laakiin waxyaabo badan baa kulley ka horeeya baan maana inay tahay intaa sameyno in dadkeenu fahmaan horta wasaaradan in la rari karayo waxa laga yaaba wasiirka imika lagu yidhahdo cirgaabo ka shaqee inuu madaxu xanuun yidhaha maxaan cirgaabo ka doonaya inaga laga geli oo carqaladada la qabto ninka markaa meesha madaxda marka insha allah waan ka shaqeyn doonaa waa midaan maskaxda dib ku hayn doonaa gudbin doono thanks xafladeennii waan inoo soo xirayaa mar labaad aad iyo aad baa umahadsantihiin sida wanaagsan ee dhammaantiin uga soo qayb gasheen gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada iyo caruurta joogtaba mid baan doonaya inaan ku daro dadkii markii hore aan ku talagalay in weliba qorshahayga igu jira liiska in haweenka ayaa sheegtay minority-ga iyo xisbiga sideebaa halkee bay ka geli doonaan mustaqbalka waxaa jiray niman ka imanayay St. Catherine oo halkan liiska igu yaalay oo soo hadlay gaari ka xumaaday nimankaasi ma imanin laakiin inaan magacooda meesha ka sheegna waa muhiim weeye shuwara Somalilandna way kasoo qayb geli doonaan xisbigu doonaba ha noqdee nimankaas waa niman taageero aada inooga mudan waddankana sidaynu u sheegnay ku ah dadka tiradooda yar tahay niman kaloo tuwag ay ahayd inay ka yimaadaan iyana way soo hadleeno baraf iyo waxbaan naxanime bay yidhaahdeen marka iyaga laftigoodu in laga sheego halkan way ku wanaagsanayd waktiga weynoo dhammaaday waa mahadsantihiin sidaas ushirkii ugu hadlaya